بسم الله الرحمن الرحيم قضبضة ورك ويدينها يو تي في قرنك الصوماليات وحا وين مدحوينها جمهورية الصومالية مدن الشيخ شريف شيخ أحمد يا مانتا وحا وكورمير كتغي آغا كترسن دقمة بوندير قبل كبنادر وزارة arrimaha gudaha xukuumadda kumeel gaarka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ka furtay seminar muddo 10 maalmood ah oo soconaya qaybaha kala duwan ee bulshada kaasi oo lagu baranayo xalinta khilaafaadka. Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta waxa uu isna sheegay ama bilaabay hawlo wadooyinka waaweyn ee gobolka Banaadir looga qaadayo bacaadka soo dhoobtay halkaasi. intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warkeeni haatan isagii oo fidsan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ay safarkiisa ku weheliyaan wasiir ku-xigeenka difaaca iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu kormeer howlad ku tagay aagag dhawaan laga qabsaday maleeshiyada kooxda Al-Shabaab oo ku yaala degmada Boondheer ee gobolka Banaadir. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ay ku weheliyaan kormeerkiisa wasiir ku-xigeenka wasaaradda difaaca xukuumadda kumeel gaarka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay kormeer ku tageen xaafado ka tirsan degmada Boondheer ee gobolka Banaadir halkaasi oo dhawaan lagala wareegay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha iyo xubnaha la socday ayaa waxa ay warbixino ka dhageysteen taliyaha ciidamada hogaaminaya aagagaasi Ibraahim Isaaq Yarow iyo gudoomiyaha degmada Boondheer Cabdullaahi Wardheere Istakiin iyadoo madaxweynaha intaa kadib ay kormeer ku soo marsiiyeen aagag dhawaan lagala wareegay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab iyo guryo dad rayid ay lahaayeen oo ay in muddo ah kooxda Shabaab si xoog ku haysteen isla markaana ay dhex deganaayeen. madaxweynaha ayaa furinta hore ee aagga waxa uu kula hadlay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka oo ku sugan aagga degmada Boondheer ee gobolka Banaadir iyadoona uu si weyn madaxweynaha uga guubaabiyay in aanu jiri karin dal aan ciidan lahayn isla markaana dawlad waliba ay ku dhisan tahay ciidamadeeda. dadkoo dhan sharafta waa jecel yihiin laakiin in yar ayaa awooda inay sharaftaas xaqiijiso. waxaan rabnaa markaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida inay sharafkaas qaataan maanta waa la dul taagan yahay. dadka aan la diriraysiin ama dawladdu ay la dirirayso ama shacabku ay la dirirayaan waxay ka been sheegeen diinta waxay ka been sheegeen ummadda Soomaaliyeed. ujeedadooduna waxay tahay inay fawdadu sii socoto dawladda Soomaaliyeed inaan la helin inay dhibaato galiyaan shacabka Soomaaliyeed iyagoo ka been sheegaya diinta Islaamka. marka waa inaan taas ogaano annaga waxaan nahay dad muslim ah waxaan nahay qaran Soomaaliyeed annagoo dhan waxaan samaynaynaa dawladnimadaas. dawladnimada adiga qayb ka tahay qoyskaagu qayb uu ka yahay qabiilkaagu qayb uu ka yahay qof kale sidaas oo ku garab fadhiyana waa sidoo kale. marka waxa kaliya oo lagu wada shaqeyn karo waa dawladnimadaas horumarna lagu gaari karo. qabiil waa soo aragnay faa'iidadiisa iyo khasaaradiisa fawdo waa soo aragnay faa'iidada iyo khasaaradeeda maanta waxaan hortaaganahay dawladnimo marka waa inaan ku faraadayno. dad maqli jirteen SYL iyo dad halganka u soo halgamay ee dalka xoreeyay maanta adinka fursadiina la joogaa. dad jeclaa lahayd shalay inaad joogto maanta joogtaa isla taariikhiyeed maanta sameey kartaa. sidoo kale xubnaha ku sugan aagga degmada Boondheer ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulka degmadaasi ayaa madaxweynaha waxa ay tusiyeen boholo waaweyn oo kooxda Al-Shabaab halkaas uga qodnaa isla markaana ay ciidanka xoogga dalka ka saareen kadib dagaal halkaasi ku dhaxmaray. madaxweynuhu waxa uu sidoo kale hadallo guubaabala u jeediyay ciidamada ku sugan aagga degmada Boondheer ee gobolka Banaadir kuwaas oo kala hadlay in ay joojiyaan isticmaalka muqaadaraadka oo halis u ah askarinimada iyo u dhawr adeega hawsha uu askariga xilligaasi ku jiro. marka mushaarka qaadato waxa leedahay ma ilmaha siisaa ma islaanta jaadka wallahi jaadkuna waa muhiim ilmaha lama dhaafi karo. wararkaas maxaa ku gelnaa $100 hadaa soo heshid ilmaha bash ku sii mushaarka waa la badi doonaa insha Allah tabaaraka wa taala. laakiin hadii la badso darajada ku galaysa salamiya la ya ma soconayso sidaas aan rabnaa. haddaan taas la yeelin waxaan naga xumaanaya iidan waxa la ka rabaa in aad uga shaqeysiin. marka insha Allah tabaaraka wa taala waxaan rajaynaa yani iidoo dalkii la qabtay oo la wada faraxsan yahay oo dalkii nabad yahay aadna
si fiican u fahamteen mas'uuliyaddii aad qabateen macnaha ay lahayd inaan mar dhow gaarno waxaan idin rajaynayaa guul shaqadiina inaad wadatiin la rabaa mataqaanaa isna kaashatiin maxaa yeelay ninka kula garabkaaga ku jira aduu saaxiibkaa yahay aduu walaalkaa yahay midka guriga jiro kula dhashay asaga kaaga fiican maxaa yeelay cadow kula difaaca marka waa muhiim midka kula socda inaad u ogaatid inuu walaalkaaga dhabqaday aad u mahadsantihiin booqashada maanta madaxweynaha uu ku tagay degmada Boondheer ee gobolka Banaadir aagag dhawaan lagala wareegay kooxda al-shabaab ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli maalin ka hor madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu kormeer sidan oo kale ah uu ku tagay deegaano ka tirsan degmada Daaymiile iyo degmada Hodan ee gobolka Banaadir kuwaas oo ku yaala agaarka wasaaradda gaashaandhigga oo dhawaan lagala wareegay kooxda al-shabaab. Liibaan Cali Nuur, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda kumeel gaarka Soomaaliya ayaa maanta furtay aqoon kororsi muddo 10 maalmood ka soconaya magaalada Muqdisho kaasi oo lagu baranayo xalinta khilaafaadka. wariyahana Cabdinuur Muuday ayaa ka qayb galay furitaanka aqoon kororsigaasi warkana nooga diyaarshay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda amuraha gudaha xukuumadda Soomaaliya Mudane Ibraahim Isaaq Yarow ayaa munaasabadan isugu jirtay soo dhaweynta ergada ka socotay walaalaha reer Wajeer iyo furitaanka aqoon isweydaarsiga ku saabsan xalinta khilaafaadka bulshada kala qayb galay maamulka gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale. waxaan ugu horeyntii madasha ka hadlay oo ka mahad celiyay soo dhaweynta heerka sare ah ee loo sameeyay ergada ka koobnayd 6 ruux ee ka socotay deegaanka Wajeer. madaxa ergadaasi Maxamed Cabdi Ibraahim oo loo yaqaan Gadiidow oo misana xusay inay Muqdisho u yimaadeen wafdigoodu sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen nabadeynta iyo dib u heshiisiinta walaalaha Soomaaliyeed siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba. waxaan intaasi ku daray Mudane Gadiidow in muddo 9 maalmood oo ay Muqdisho joogi doonaan isaga iyo wafdigiisu ay ardada wax ka barata dugsiyada iyo jaamacadaha magaalada Muqdisho siin doonaan casharro la xiriira nabadeynta iyo hagaajinta moralka Soomaalida. oo ka timid North Eastern ama NFP hadda sida taqaanaan imaade hayna muddo ayaa laga soo shaqeeyay waana raadiyo dada la raadiyo xamar aado oo walaalahood jiiraanyada ka bixiyay waana waay annagaa dhahday waa tegaynaa diyaar baanu nahay inaan walaalayaha jiiraanyada ka bixin waxaan uga qiyaasay dad ismiinay oo sidaas soo qarxinhay laakiin waxaan dhahnay waa tegaynaa walaalahayna soo arkaynaa jiiraanyadii ayaa ka bixinaynaa muddo 10 maalin ayaa la soo joogaynaa saasaan halka ku joognaa. intaa kadib ayaa waxaa isna hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo reer Wajeer uga mahad celiyay booqashadoodan ay Muqdisho ku yimaadeen iyo waliba dadaalkoodan ku aadan sidii ay Soomaalida uga qayb qaadan lahaayeen nabadgelyada iyo sida ay u doonayaan inay mar uun arkaan Soomaaliya oo mar kale nabad ah. shacabkii la laayay shacabkii la barakiciyay shacabkii la duleeyay oo lagu qasbay in ay ku noolaadaan cabsi iyo mugdi iyo gaajo iyo gudaafad shacabkaasi shaki kuma jiro in ay dhibaato soo gaartay maskaxdiisa shacabkaasi shaki kuma jiro inay nafsaaniyan u jiran yihiin shacabkaasi shaki kuma jiro in ay dhibaato qalbiga taabanaysa in ay gaartay shacabkaas dhibaataysan haddana meel uu ku neefsado oo uu ku sheego oo uu ku soo saaro waxa ku jira qalbigiisa waa loo diiday sababtoo xasilooni looma ogola isbitaallo takhasus ah oo arrimahaas ka shaqeeyana ma haysano qof kasta marka tiiraanyadiisii iyo colaadii iyo calool xanuunkii iyo nacaabkii iyo xumaantii ayuu qalbigiisa guri mugdi ah oo nadiif ah laga nasiibku yeeshay in la tababaro maaha keliya inaad inta tababarkii qaadatid gurigaaga uga noqoto. ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda amuraha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa si rasmi ah waxa uu u furay aqoon isweydaarsigan muddada 9 maalmood socon doona. runtii
lama qiyaasi karo farxadda iyo muxuu ahaa iyo isla markaas fikirka aan ku dhex fikiraynay tusaalooyinka horteena ka muuqday muxuu ahaa munaasabadan sababteed ku yimid wixii cilmi iyo caqli ahaa ee dhibkana haya iyo sida looga baxayo iyo tusaalooyinkooda ku saabsanaa fankana lagu tusay hadal gubaalaha reer gudoomiyaha kiisa wax lagu dari kara ma jiraan qofka hadduu aftahan yahay hadduu hadlo waxa weeye dadka kale oo ka dambeeya inay u sacbiyaan oo ku raacaan moogiyo wax kale u banaan ma jiraan shirkii way inoo fog yihiin walaalaheena gacmo furo ku soo dhawaada walaalihiina idinka faa'iidaystaan idinku ka faa'iidaystaan si kastaba ha ahaatee waxaa taliyaha magaalada muqdisho ku soo bandhigay wafdiyada ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee soomaalida ee kenya kuwaasoo iyagu ah xaaldoon kuna yimid xaaladda waddanka soomaaliya si ay u wacyigeliyaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana la ogyahay in toddobaadkii la soo dhaafay ay magaalada ka amabaxeen siyaasiyiin laba aha oo ka soo jeeda gobolkaas oo iyaguna booqasho ku yimid sidaas oo kale dunida guuday telefishinka qaranka muqdisho